بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك أينما كنتم ولا الله كحرا يوتيوب جنلك مع العيسو ديسي كسو دوادا مقال عن وهد لدونا بإذن الله تبارك وتعالى آداب تصونك يو سنوين كيسا ولا ليال آداب تصونك وحاكمد كو تعجيل الإفطار in la dedejiyo afurka. waxaa kaloo kamid ta'khiiru suxuur, in suxuurta la dibdhigo. suxuurta oo la dibdhigo waxay kamid tahay min sunan as-sawm. suxuurta qaadashadeeda oo in la suxuurta qudheeda ayaaba baraka ay ku jirtaaba. suxuurta in la cuno oo la suxuurto waa sunno iyo aadaab. suxuurta qudheeda ayaa la kala qaadayaa xilli hore in la suxuurto iyo in la dibdhiga keebaa khayr badan oo baraka badan oo fadli badan. waxaa wanaagsan in suxuurta la dibdhigo halka afurka la dadajinayo. waxaa kaloo kamid aadaabta soonka in qofka uusan caytamin. waxaa kaloo kamid aadaabta soonka in qofka uusan been sheegin, beenta inuu iskaga tago, uusan dadka been ugu sheekeynin. waxaa kaloo kamid aadaabta soonka isku dirka inuu iska daayo, namiimada iyo isku dirka inuu iska daayo. waxaa kaloo kamid hadalka xun inuu iska daayo. aadaabta soonka iyo sunnooyinkiisaba waxaa kamid in qofka saa'imka uusan caytamin, af lagaa doonin, waxyaabaha maalayacniga uu iska daayo. waxaa kaloo kamid inuu iska daayo shahaadada oo loo yaqaano shahaadatu zuur. aadaabta soonka iyo sunnooyinkiisaba waxaa kamid in lagu afuro timir. haddii timir la waayane biyaha caadiga oo shimbiliska loo yaqaano in lagu afuro. waxaa kaloo kamid aadaabta soonka in qofka saa'imka inuu xanta iska daayo. aadaabta soonka waxaa kaloo kamid in qofka uu badiyo qiraa'atu lqur'aan. waxaa kaloo kamid sunnooyinka soonka in qofka saa'imka habeenkii markii la gaaro bacd alcishe salaad taraawiixda waa inuu dukadaa, jamac iyo jamaacaba inuu ku dukadaa haddii uu kari karo. hadduu kari karin gurigiisa inuu ku cibaadeysto. siiba caruurta iyo dumarkaba inay xaafadaha iskaga dukadaan. raggana haddii kari karaan masaajidada oo taraawiixda lagu dukado waa inay aadaan. waxaa kaloo kamid aadaabta soonka in qofka sadaqada uu badiyo. qofka sooman ama saa'imka sunnooyinka laga rabo waxaa kamid waa inuu badiyaa sadaqada. waxaa kaloo kamid in qofka laqwiga inuu iska daayo, hadallada maalayacniga oo cantara baqashka oo maalayacniga oo kutirikuteenka waa inuu ka istaaga oo iska daaya. marka insha Allah taala intaas ayaan galabta kusoo gabagabeynaya muuqaalkayga aan uga hadlayay aadaabta soonka iyo sunnooyinkiisa. wajazaakumullahu khayran. muuqaalka sii shargareeya, like-tana sida roobka oo kale ugu dhiga. wajazaakumullahu khayran wa shakara Allah husna mushaahadatikum واستماعكم. رمضان مبارك أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.